waxaanu ku sugannahay xarunta guddida doorashooyinka ee gobolka Hargeysa ee sanaadiiqdu ku soo xaroonayaan saacaddu waxay ku siqaysaa waa abaara 12 habeenimo komishaneerka Mustafa Maxamed Daahir oo ka mid ah 7 xubnood ee guddida doorashooyinka isla markaasina gudoomiyaha gobolka Maroodijeex guddida u qaabilsan ayaan kula kulmay isla goobta komishaneerka ku soo dhawow bal sanaadiiqdiisa u soo xaroonayaan waa 12 habeenimo sidee shaqadu idinku socotaa بسم الله الرحمن الرحيم mahadsanid maxamed alxamdulillah ilaahay ma si wanaagsan bay inoogu dhamaatay maanta codbixintii imika waxa bilaabantay xaruntan aan joogno ka socota waxa weeyaan waa halkii ay ku soo hoyanayeen ama ay ku soo xaroonayeen goobihii lagu soo codeeyay sanaadiiqdoodii waa meesha xarunta u noqon doonta tirinta codkii sugayntooda gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa ilaahay ma si wanaagsan bay u socotaa tira gooba ah baa ilaa imika soo hoyday wayna socon doonaan ilaa caawada way socon doontaa goobo way soo xaroon doonaan wax laga yaabaa ilaa 2-3 habeenimo inaan ku gaarno halkan ilaa intay soo dhamaanayaan markay soo dhamaadaan kadib waxa loo ballami doonaa in axsaabta wakiilada axsaabta iyo commissionku ay dib iskaga yimaadaan si markaa loo bilaabo tirinta maxaan ku dhahay sugeynta codka goobaha ka yimi marka imika sanaadiiqda la keenayo goobta ay marayaan lagu soo xareeyo xarunta gobolka sidoo nidaamku soo maraya sanduuqii maanta dadku codka ku rideen waa la soo xidhayaa miyaa la soo tirinayaa qaabkee loola soo dhaqmayaa qaabku halkan ku imanayaa qaabkee haddana la isku imanayaa sidee soconaysaa bal processkaas maxamed markay maalintii saacadaha codaynta loogu talagalay oo 6 maqribnimo marka loo shaqeeyay inta markaa 6 maqribnimo u taagan safka codbixinta markay soo dhamaadaan goobta xidhanto dhammaan shaqaalaha goobtu waxay bilaabaan in ay u diyaar garoobaan inay bilaabaan tirintii codadka iyo inay maxaan ku dhahdaaye isku geeyaan tirada murashaxiintu ka kala heleen goobta murashax walba uu ka helay isla markaana ay buuxiyaan result sheetka ama foomkii natiijada waa la soo xidhaa sanduuqa natiijadana barna waxa laga yimaadaa 5 koobi weeyaan saddexdaas wakiil ee xisbiyadu waxay kala qaataan 3 koobina waxa laga yimaadaa waxa lagu xidhaa sanduuqa koobina gudoomiyaha goobta ayaa bushqad ku soo rida documentka ku jira bushqadaasi waxa weeyaan documentka cadeynaya waxa sanduuqaas laga kala helay natiijo ku saabsan kaasa markaa hadhow loo isticmaali doonaa foomka natiijada la iskaga geeyay ay weeyaan ka loo isticmaali doona hadhow in la isku dardaro goobaha kala duwan ee laga soo saaro natiijada xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Hargeysa waxaa ku soo xaroonaya sanaadiiqda kala duwan ee ka imanaya goobaha kala duwan ee ka tirsan gobolka Maroodijeex oo ka badan 970 goobood oo ku siman ilaa 1,000 goobood goobahani ay dadku codkooda ka dhiibteen ayaa waxay kala yihiin degmada Hargeysa iyo deegaanada kale ama degmooyinka kale ee hoos imaada taasi oo aad arkaysaan in la bilaabay tirinta codadka ee goobaha isla markaasina marka la dhameystiray qaar ka mid ah goobuhu ay soo gaadheen isla xarunta gobolka ee guddida doorashooyinka ee qaranka oo ay imika ka socoto in dib loogu tiriyo ama dib loogu hubiyo taasi oo ay joogaan asxaabta qaranka wakiilada kala metelaya muraaqibiinta gudoomiyayaasha degmooyinka ama goobaha ee guddida doorashooyinka iyaguna u metelayay haddaba bal waxaynu eegi doonaa sanaadiiqda kala duwan ee u soo xarooday halka ay marayaan iyo goorta ay soo dhammaystirmayaan oo uu ka hadlay Mustafa Maxamed Daahir horta caawa soo xareynta goobaha inay soo hoydaan waxa laga yaabaa ilaa inay qaadato salaadii wax ku dhawaadka kadib waxa la sameyn doonaa waa la yarnasan doonaa xoogaa marka berri barqada oo kale 9 subaxnimo waxa laga yaabaa in dib loo bilaabo isugeynta goobaha ee heer degme iyo heer gobolba ilaa intay ku dhamaanayso haddaba dadku waxa ay sugayaan waxa ay tahay soo xareynta iyo dhammaystirka sanaadiiqda kala duwan ee gobolka Maroodijeex iyo guud ahaanba Soomaaliland oo dhan gobol walbana sanaadiiqdii la tiriyay oo aad u kooban iyo sanaadiiqda codadkoodu socda ee tirintoodu ka socoto goobaha waa ay wada socdaan guud ahaanba dalka balse hordhaca ugu horeeya oo kooban oo aan qiyaas badan lagu sheegi karin ayaa waxa ay soo gaarayaan goobaha laga maamulayo gobol walba halkanina waa gobolka Maroodijeex
oo ah gobolka ugu codka badan ugu xildhibaanada badan dhinaca baarlamanka iyo dhinaca deegaankaba sidoo kalena ugu tiro codbixinta badan uguna goobaha badan saad arkaysaan ciidamada booliiska gaadiidka milatariga dadweynaha kala duwan ee iyagu shaqadan qaabilsan ayaa ku sugan xarunta gobolka Maroodijeex MMTV kala soco goor kasta iyo goob kastaba barnaamijyada iyo wararka la xidhiidha arrimaha doorashooyinka tirinta codadka xildhibaanada kala duwan aragtiyaha siyaasiga ah iyo caalamka iyo dadka Soomaalidiiba waxa ay ka qabaan nala joog goor kasta iyo goob kasta annagoo live idinku wadi doona tan iyo codbixinta wararka ugu muhiimsan idiin soo gudbin doona waa anigoo Maxamed Cabdiiliga iyo Sakariye Siciid oo idin leh nabadgelyo